ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta xirxiray dhalinyaro badan oo dibadbax ka dhigay wadooyin kamid ah magaalada Muqdisho. Dibadbaxayaasha ayaa diidanaa ficilada ka dhanka ah dowladda ee ku aadan wadayaasha mooto bajaajta. Darawallada mooto bajaajta ku shaqeysta ayaa isugu soo baxay bannaanbax ka dhan ah ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyagoo ka cabanaya dilal aan loo meeldayin ee loo geysto darawallada ku shaqeysta bajaajta. bajaajleyda ayaa waxay bannaanbax ka dhigeen maanta degmooyinka Howlwadaag, Hodan, Waaberi iyo sidoo kale isgoysyada qaar ee magaalada. Bannaanbaxayaasha oo ka careysan dilal loo geysto ragga ku shaqeysta bajaajta oo ugu dambeeyay dil saaka loo geystay mid ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysta mooto bajaajta iyo qof la socday ayaa xiray qaybo ka mid ah ganacsiyada qaar ee magaalada. ciidamada dowladda ayaa xirxiray qaybo ka mid ah bannaanbaxayaasha iyagoo kuwa kalena rasaas ku kala eriyay. daqiiqado ka hor halkan waxaa ku bannaanbaxayay bannaanbaxyaal fara badan kuwaas oo ah dhalinyarada ku shaqeysata mooto bajaajta iyagoo ka cabanaya dilalka loo geysto dhalinyarada bajaajta ku shaqeysta. saakay ugu dambeysay waxaa la dilay wiil ku shaqeysanaya mooto bajaajta iyo wiil kale oo u kireysneed mooto bajaajtaasi. degmooyinka qayb ayuu ku sii fadayaa bannaanbaxani. daqiiqado ka hor halkan ayay ku bannaanbaxayeen iyadoo markii dambe ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo goobtan soo gaaray ay kala eriyeen bannaanbaxayaashii halka kuwa qaybna ay xireen. Cabdikariin Cali Aadan, Goobjoog TV, magaalada